بسم الله الرحمن الرحيم داوديال كلنتي وعنا وناكسن ملك استوات جوجتان كنا soo dhawaada barnaamijkeena kun su'aalood iyo su'aal dabcan hadba fanaanka isleedahay su'aalihiisa ama in waxyaabo badan baa la weydiiyay baa loo baahan yahay baan anaguna hortiina keenaa toddobaadkan barnaamijka kun su'aalood iyo su'aal waxay noogu martiyaa Suldaan Seraar Guhaad oo ku soo dhaweynayaa barnaamijkeena caawa martii ugu noqdo waa mahadsantahay walaashay fiimo aad baan kaaga mahadcelinayaa fursadan qiimaha badan ee siiseen inaad kala soo qaybgalo barnaamijkan wana dhawahay mar koobaad iyo mar labaad anaguna adiga ayaan ku mahadcelin dabcan hoolkan ku sugannahay waa Amaal Artist oo iyaduna dabcan hoolka quruxda badan leh nagu soo casuuntay waxa leenahay Amaal la gacanta kuma go'do Suldaan su'aalaheena waynu guda galeynaa su'aalaheena intaanu guda galin Suldaan Seraar marka kafanka laga tago waa kuma Suldaan Seraar waa nin kamid ah bulshada Soomaaliyeed markii fanka laga tago waa nin kamid ummadda Soomaaliyeed waa nin kamid ummadda Soomaaliyeed waxa jirta daawadayaashaada ayaa noo bandhignay su'aalaha daawadayaashaadu ku soo weydiineen ama taageerayaashaadu ku soo weydiiyaan bal anaguna inta aanu isniri intaasi waa loo baahan yahay in Suldaan la weydiiyay anaguna soo qaadanay mid kamid ah daawadayaasha ama taageerayaashaada ayaa wuxuu ku leeyahay Suldaan heestii aad soo qaaday ee 725 oo 275 ma isleedahay taageerayaal badan oo ku daawan jiray ayay dib kaaga dhigtay sida aad heeso hore aad u soo qaaday oo murtilaha sida heestii Aamina iyo Xamar Bila iyo waliba heestii silsiladii taxanaha ahayd ay ku bilaabantay waa su'aal qurux badan oo jawaab u baahan ismilihii taageerayaal bay dib kaaga dhigtay waxaan ummadayda Soomaaliyeed fanaan u ahay كليته وانو هيسا كقصلي وانو هيسا كفرحسن وانو هيسا هاسك waxay ahayd hees ku yimid rabitaan ka dadkayga ama shacabkayga mid kamid ah hees wuxuu ahaa ku qotoma qisar run ah waliba qofkii ay ku dhacday aan si live ay soo horfadhiisanay wiil iyo gabadh muddo badan wada sheekaysanayay oo la isu diidanaa arrin qabiil darteed la isugu diiday inagu haddaan Soomaalinahay dad kale aan cusubeen ku sheegnaa inaga dhaxdayna inaga dhex taagan tahay qabiil haday noqoto dhan walba wiilii gabadh muddo badan wada sheekaysanay baa la isu diiday arrin qabiil darteed inankii baa iga sheekeeyay qisada laba sano la isu diidanaa waliba gabadha lagu yiri ninkan kuma geeyo saasay ku timid heesku laba sano la isu diidanaa markii dambe la ogaaday inaan kala maarmin laba qof oo kala maarmayna aysan ahayn yaa la isu ogolaaday marka taariikhda isguursadaan waxay ahayd 275 oo ah 27 bishii shanaad markaas qisadaas ay ku timid anigu waxaan ahay fanaan Soomaaliyeed ummadaydan u heesaa marka heeskuna saas ay ku timid waa tahay wali taageerayaashaadii su'aalahooga waan ku sii soconaynaa wuxuu yiri hadduu mid kamid ah xataa haday heestani tahay hees qiso ah oo qiso ku timid iyadoo qisada la falanqeynayo inta 275 la leeyahay ma qaab kale ma loo dhigaa ma yini jirin buu ku yiri waxa dhici karta buu ku yiri taageerayaashada qaarkood ku gunacaan iyagoo kaaga bartay in hees murtile ama hees murtile aad soo qaadi jirtay waa sax waxaad muddo su'aashan inay tii hore daba taalo waa run way jiraan dad badan oo igu yiri heesaan heesaagii ma aha laakiin marka fanaan tahay dhan walba inaad u rido oo qurux badan tahay heeskan hees ka horeeyay baa jiray oo laxan qurux badan iyo ereyo qurux badan ku qotomay tanna waxaan tirada ugu darnay de taariikhda ay labada qof farxeen bay ahayd in ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ay la farxaan taas baan qabaa kulli ma ihi qof dhameystiran ilaahay baa waxa la yiri qof walba ma dhameystirno nibay ku wanaagsan inuu ku xun yahay sax weey isma dhihi karayo de waa buuxin kartaa kaalin walba marka laakiin waxaan isku dayay in aan u gudbiyo bulshadayda haba wixii ay tabayaan waa mid kamid ah taageerayaasha su'aalahooga waan ku sii soconaa waliba waa gabadh waxa ku tiri waraysiyo kale oo bixisay Suldaan waxaad ku sheegtay inaad fankaanad ku raadin oo ka fariisanayso haatan waxaad moodaa heesaha uu kolba heesta aad qaaday inay saamin gooniya sameynayso oo heesaha uu dib u soo laba kacleynayaan oo fankii xaraaradii iyo xiiso u sii yeelayso ma waxaad ka laabatay go'aankaagii yahay inaad fanka ka baxdo oo inaad ku sii raagaynin sababtaas keentay inaad heesaha oo dawga soo qaado aad bulshada u sii deyso qof walba waxa la yiraahdaa horta waa hubbi waxaan fankaaniga geeyay dafan Soomaaliyeedna wax laga dhaxlo ma jirto haddii ilaahay raali ka noqdo maalinka xaq ilaahay ka soo go'do anigu way qorshaysan tahay inaan fanka ka fadhiisto
laakiin maalin ay noqoto baan ka fadhiisan doonaa laakiin saa uma sii fogo dabcan markaanu anagu dadka taageerayaashaada dad badan baa fariimaha soo qoray kuma soo wada gaarsiin karno su'aalahooga dad baa laakiin xujo kaaga dhigay koornay ilooba ilaa inaad ii weydiisaa laga yaabaa inaad taageerayaal si gaar ah ku garanay xataa qaarkood yihiin dabcan mid kamid ah taageerayaasha ayaa su'aal haddaad gari weydo waa su'aal iska xujo ah oo isagu soo qoray waxaad ii weydiisaa buuri suldaanka cagta geelu halka uu dhigo magaceega cagta geela halka uu dhigo magaceega waa dhulun buu dhigaay malaha qiyaastii u samaysan tuu sheegaya ama magaca loo yaqaano waa su'aal dhaqana buuri laakiinse wuu soo adkeeyay su'aashaasi may su'aashaas haddaa adigu naga faa'iideen laakiin meeshuu cagta dhigayo taa waa igu adagta waata suldaan qof walba mustaqbal iyo hiigsi buu leeyahay qof walba nolosha inuu meel ka gaaro jecel yahay gabadha aad qabtay xaaska amoon waxyaabaha aad ku dooratay inay mustaqbalkaaga ka mid noqoto ama noloshaada ay hoggaan kula noqoto maxaa ka mid ah su'aal qurux badan oo jawaab u baahan qofka bini'aadamka markaad guur aad u hamooto qofkan waa qofka hadduu ilaahay isu keen qoray aad rajaynayso inta cimrigiina ka dhiman inaad wada noolaataan dhan walba inaad ka eegtaan waa qurux badan tahay dad badan laga yaabaa inay la qabaan fikirkayna ay aaminsan yihiin dad badan laga yaabaa saan qoftayda u ammaano inay u ammaanaan laakiin xaaskayga waxaan ku doortay waa qof iimaan leh waa qof dabeecad wanaagsan waa qof aan isfahanay intaasaan ku doortay suldaan markaad heesahaaga soo saarto qofku markuu isagu soo saaray heesaha ma dad fanka kaaga weyn baad ula tagtaa heesta marka aad soo saartay dhammaystirantay muuqaal ahaan dhammaystiranto oo go'aan ka soo celiya mise aad markaad soo saarto ee lagaa soo duubo go'aanka adiga ayaa qaata sideed ku ogaataa heestaasi inay fiican tahay inay macaan tahay inay ereyadeed marka aad kumbuleed noqotay heestu dhammaatay qaab noocee baad u miisaantaad u qiyaastaa waxaan ku qiyaasaa heeska marka koobaad erayadan qiimeeya laxankana waan qiimeeyaa marka uu waxa ku qanciyo adiga marka uu ku qanciyo bulshadana qancin karaa marka heesahayga marka inta aysan soo bixin baan qiimeeyaa laxan hadday noqotay hadday erayo noqotaba kadib baan muusiga fiican u raadinaa oo markaa dareenka bulshada ka turjumaya videogana saasuu ku yimaadaa laakiin tijaabada koobaad waa erayada iyo laxanka suldaan muddaad fanka ku jirtay magacna waad ka samaysay fanka markaad soo gelaysay ma waxaad u soo gashay inaad magac iyo dhaqaale ka samayso inaad dhaqaale ka samayso aan idhaahdo ood hanti ka qabsato mise inaad magac yeelato qof caana noqoto hadafkii ugu horreeyay u soo gashay fanka waa sax horta fan Soomaaliyeed saan wada ognahay wax dhaqaale horta laga sameeyo ma jiro waxa ugu muhiimsan ee laga sameeyo waa magac ninkii yiraahdo fanka Soomaaliyeed dhaqaalan ka sameeyay waxba kama sameeynin waa laga yaabaa adoo fanaan ah inaad maskaxdaada meel kale u jeediso adoo fankeena ku jira hawl ganacsi ama hawl kale aad barbar wado laakiin markii hore fanka waxaan soo galay anigu jacayl aan jeclaa fanka ayaan soo galay sidii buuna ahaa welina halkii aan taagnaa inaan taaganahay baan soo haystaa arday baan ahay weli fanaan weyn isuma haysto ma isleedahay magac baad dhaxashay oo magac weyn oo ayaad gaadho meel hee fiican baad joogtaa والله فنانين بدن ويجا مجا عدير ويشران ويجا فنان سوي شران لكن اسمه له فنان بدو حدير تاي اسمه له فن مركز لا محل قدرته فن فنان مركز فن أدونسو فن ومجا عجود مركز فن له هاي محل قدران كرا وحيابها لطابن كرا فن لقدران كرا وامح فك واحد لقدران كرا ديوانات فنان نقطه هي ساعة صارته فن مركز هذا وكل بحياة متاجر لا يمن رواية بأمانية وكل دوية مركز فن وأنا هي صو عاد سميسة وصارته إيوات وحنو نقولنا سؤاله تاجرية شاد مت كمية تاجرية شاد أو ولي بويلة أيوة حصاق السلطان يحرر روحه يعني لبنان صاحبه خاصة ولي بمتانا لقطريه
waxa jirtay barihii ugu dambeeyay oo suldaan safarada gaala bixinay saaxiibkii lagu maagarag ma waxa la odhan karaa suldaan marka saaxiibkii uu ka kaaftoomay oo markuu heer gaadhay uu saaxiibkii ka tagay وسؤال قروح بدن أنا ورد ما أمسني حرير صاحبك ما أو ولالك حرير موقف أنت شعلهاي موقف فينك ستشعلهاي موقف نعدك ستشعلهاي ولالك ملبا وضع ساحنا وحبان وضع عني ملبا كسو وضع كورني إسكول بانسو وضع لقناي صاحب ما هو ولالك وحس كل دعا أنا ما صود أحمر يعني حرير إلهي نكمل تشيني ونصود أحمر سكول دعا قلبي كان كتشعلهاي وقف أخلاق ديسة وناقيسة سمعة ديسة أن شعلهاي وحاس كل عني متشري حرير سفرنا بحيينا وحي هايين كو وحرير هو لك لهي أنا قلنا أصاكو بحي بي هايين مركا سؤال أساس بي كوس أحسنته وحلا رقف والبا وحي ضدكو كوشيك شيغان معناها أو مقلع معناها ودي ما أنت لا رسول دانو حي هاي دور قف كل عيد كو كنت موايس bulshadu ma waxay ku raadaan suldaan waa danayste oo qof dantiisa oo neegto danta dadka kala fiirin mise waxay ku raadaan waa qof daacad oo wanaagsan baxanta bulshada kaaga timaada waa maxay horta marka aad ummad Soomaaliyeed aad magac ku dhaxleedahay fanaan baa ahaan laakiin magac ku dhaxleedahay wax walba waana horta aad u dul qaadato oo kaaga yimaada taa kama jawaabi karo oo wanaag baa iga imaada ama xumaan baa iga iman kara kuma dhihi karo laakiin dhanka wanaagsan u barajeeya mar walba ummadeydana waxay ku qanacsan tahay raali gelintooda oo u taaganahay su'aalaha halkaan ku joojisana dib ay noogu noqon doona xagga kalmaha suugaanta inuu gali doona dawladda dadku ay codkaaga uun caawayno oran doono de waxa jira heesa badan oo qiso aad qaado intaynu ku soo dhameyn karemayno heesaha aad qaado laakiin inta ugu muhiimsan baynu oranaynaa qisadooda bal hayna la wadaago heesta Aamina oo dadku waliba aad u jecel yihiin taageerayaashaadu qof kasta oo fariin soo diray heesta Aamina way ku jirtay markay tirada la sheegana hees aad oo hees sidii balweyno kale hees aad u dheer weeyaan heestaasi qisadeeda heesta waxa sameeyay abwaan Cabdullaahi Xawayaan halkan aad ugu salaamayo macallimiin waaweyn baa isugu tagtay lahanka jinishin waa sameeyay heeska waxay ahayd qiso run ah wiil gabar oo jeclaa oo san u sheeganin awgii waagii hore marka waxa yimaaday in markaaba la isu sheegto jacaylka aw hore qofka jacaylka markuu u hayo wala xishoon jiray inuu qofkan kale wax u sheegto oo kale xishoon jiray asagoo oo gabadha jacayl buu ka xishoon jiray markuu uu dhoofay oo soo shaqaystay ay gabadha aad guursatid ayuu arooskeedii yimi qasarna ku qotantay heesku de markii dambana markuu arkay gabadhii uu jeclaa oo la guursaday dicuu raaciyay saasay heesku bal inta ugu qeyrada badan heestu walow ayna meel la tuuraba lahayn laakiin hadba markaad marayso sadar ama xaraf ama line markaad marayso qaybi ka macaanta qaybta adiga ka suldaan ahaan ku taabatay qaybtee waxay ahayd jawharo dalxiis loo dalagiya beeruhu durba wada baxeeno intuu dararay maalkii dadku wada xamdiyayaan duleedkeedii maanimaan gabadhii deeqdo dumar ay wehelinayaan intuu daadkii xiray xalay webiga ay dul joogaan sawday ma kumaaraan markay daadkiina uu ka sii qaaday inoo raacay inuu cashaq idilayana anigoon dareensiin intaan daad gureeyaan xaafadii degmadii hodan daaradoodii geeyo intaan dowga sii waday daawashadii hadalkeedii soo qulubto ima degay markuu xaafadii hodan geeyay isagoo aan jacaylkii u sheegan buu ka tagay kadibna waa kii intuu dadaalay dhoofay heesta kale waxaan doonayaa inuu heesaha qisada wada gelin markii aad fanka soo galaysay qof wuxuu ku soo galaa hees isagu leeyahay
oo intuu soo practical badan sameeyo ama tababar badan sameeyo ayuu hees isagu leeyahay fanka ku bilaaba fanaaniinta qaarna heesa ayna iyagu lahayn bay ku soo galaan fanka tijaabada iyo markay ku jiraan adigu markii kuugu horeysay suldaan aad soo galisay fanka ma hees adiga agwaanku ku sameeyad ku soo gashay markii ugu horeysay fanka soo galay waxaan ku soo galay hees waa agwaan ii sameeyay yaan ku soo galay ma xasuusta heestii hawaan xasuustaa tahay waxaa la dhihi jiray nimco hees laga sameeyay bay ahayd waxaa sameeyay abwaan hargeyle nimca la dhihi jiray heesku xagga go'aanada markaad qaadanayso qof waxa jira markuu go'aan qaadanayo aad markuu go'aan qaataan ka soo noqon iyo qof waxa jira markuu hadhow go'aan ka qaataa hadhow toole waxaas markii ka baabaan dib u soo noqdo xagga go'aamada adigu seed isku tii xagga go'aanka waxaan ku ahay go'aan haddii aan qaato waa ka soo noqdaa waxaa laga yaabaa anoo xanaaqsan inaan go'aan qaato markuu xanaaqa uu idaayo ama iga baaba'o inaan caadigii ku soo noqdo go'aanka ka soo noqdaa laga yaabaa marka qofkii isku xanaaqday adiga raali geliya anoo raali gelin baan dilay ilahay cafiya marka raali gelinta isku fiicnid weeyaa macnaheedu ma raali gelintu qofku markuu asagu uu ka khaldan yahay inuu asaga ku raali geliyay tahay laakiin hadda adigu khaldantay laakiin raali gelisay waa waan raali geliyaa xaggi noloshaada yaraanta qof walba markuu yaraanta yahay waa arday waa ciyaal iskuul meesha doonaha ka gaadho markii yaraantaadi waxbarashada miyaad ku fiicneed mise qof qalqaali oo dagaal badan badan maxaad ka xasuutaa yaraantaadi ma yaraantayda waxbarashada waan ku fiicnaa iskoolkan dhigan jiray bareefata khaasa oo luuqadaha ahaan dhigan jiray dhanka waxbarashada aad baan ku fiicnaa ilaa aqoonta suldaan seeraar halkay gaarsiisantay waxay gaarsiisantay la heer jaamacadeed ilaa heer jaamacadeed maxaad baratay fakultigeed baratay human resource ma ku shaqaysay ma weli kuma shaqaynin xagga fanka ka awood batay xagga fankan u leecay markaad mar isleedahay markaa fanka ilaa 10 sano oo dambe ayaad ku jiri doontaa may ismilihi naftii gaadha in ka yar hadii la raali ka noqdo markaad fanka soo galaysay waalidiinteenu fanka waxay ka aaminsan markuu ilmahoodu soo galiyo inuuna baraha bulshada lagu arag ama uuna fanaan ka noqon wax xun bay ka aaminsan wali qof sidoo ka dhigta fanka uu yahay adigu markaad fanka soo galaysay family-gu ma kugu taageeray mise kaaga hor yimaadeen may markii hore family-gu iska daabay dhaheen laakiin markii dambe way igu saacideen wixii farxadayda abay ka talinayeen maadaama oo aan yaraanka xaafadda ahaa raaka gurdamba isbaabta marka waa lagugu daayay yaraan ahaan baa lagugu daayay mise maya hooyaday ilaahay hadaayo waan jecelahay cimrigeedana la hadheereeyo mar walba farxadayda jeceshahay marka saasay ahayd suldaan heesta aad isleedahay dadku way kugu barteen oo waxaad ku noqotay caan waa heesteen adigu aad aaminsantay ama dadku ay kugu hadal badiyeen adigu laakiin adigu nafsiyaantaada aad aaminsantahay muhiim waxa weeyaan heeska qisada ahaa ee jawaabaha badan lahaa waxaan guulo ku qorin taas ahayd yaa isleeyahay anigu taasaad isleedahay dadka qaar waxay yiraahdaan xamar bila laakiin anigu taasana aaminsan waxaan guulo ku qorin suldaan marka aad fanaan inaad noqoto aad doonayso sax oo aad doonayso in maadaama cid kaaga horeyso fanka oo family-guna ayna kaaga horeyn ee adigu kaliya oo suldaan oo socdo fantaha fanaaniinta qaar waxay ku sheegaan inuu fanku aad u marxalad badan yahay mid kale wax aad u aan la dhaafi karin uu yahay adigu fanka yaa ka garabsi sideed laakiin halkan ku soo gaadhay walaashay aad baad mahadsan tahay anigu fanka waa runta waad saa sheegtay maxnad badan yahay laakiin waxaan la kulmay koox aad u qiimo badan oo Ilays Bandi la yiraahdo oo gudoomiyaha iyo xubinka ugu hooseeya ay isku si dadku ixtiraamaan qofka cusub la soo dhaweeyo la garab istaago wuxuu u baahan yahay in laga saacido taasaan la soo kulmay waan u mahadcelinayaa cid walba oo fankayga ka soo qayb qaadatay yaad abaal uga haysaa isleedahay fankaaga halka maanta iyaga gaarsiiyay waxaan uga hayaa dhammaan fanaaniinta deegaanka walaashay Nasra guddoomiyahayga Aadan Axmed Xaddi Aadan Joker iyo dhammaan kooxdayda Ilays Bandi oo dhan suldaan fanaaniintii hore ama kuwa dambe ma jira fanaan si gaar ah aad u taageerto oo fankiisa ku daytay ama meesha uu gaadhay inaad gaadhaan doonto way jiraan fanaan jecelahay ilaa cimrigiisa dheereeyo Xasan Aadan Samatar ayaan jecelahay xagga matalida riwaayada seed iskuti ama jilida ama filin samaynta
dhanka jalada iskuma fiicnin okay haddii lagu siiyo maanta adduun si aad u maamuli lahayd wallaahi haddii lagu siiyo haddii la isiiyo adduun kulley markii aad gacanta ku dhigto waxyaaba badan baa kugu soo dhici laakiin maamuladeedu waa adag tahay marka lagu soo hordhigon baad taas ka jawaabi kartaa adigu waxyaabo maanta aad isleedahay haddii maanta intaasoo milyan aad heli lahayd waxaasaad qabsan lahayd oo kuwa calaamadsan ma jiraan may waxay calaamadsan ma jiraan ragga Soomaalida ama ragoo dhan aan yiraahdo waxa loo biniyaa farxaas adigu midkeeda aaminsanta ma hal xaasla mise afar xaasla waxaan aaminsanahay waa run way jirtaa in diinta islaamku ay banaysay afar xaas laakiin waxaan aaminsanahay qofka bani aadamka ah hadduu waxaan aaminsanahay qofka bani aadamka ah afartaa xaas waxaad ka heli lahayd hadday farxad noqoto hadday nolol wanaagsan noqoto hadday garab istaag noqoto hadduu qofkan uu kuu dheelitirayo kuu dhammaystirayo in wax kale la deedaya u arko khaladinayta marka halka xaasfad aaminsanta taasina aaminsanahay laba shay oonad noloshaada ka maarmin oonad sinaba uga maarmin waa maxay laba shay mise laba shakhsi laba wax ama shakhsi ama shay midka doontaadii u ka dhigo laakiin waa laba waa labadeedii waalid yana ka maarmin haddaynu noqono noloshu jacayl kama maaranto jacayl marka la yidhaa ma wax qofka ku dhasha oo uu ku dhashay mise wax la barto jacaylku waa wax qofka bini aadamka ku beerma oo ilaahay ku beero taasaan aaminsanahay inay tahay heesaaga qisooyinka ku salaysa heesta mataanta jacaylka qisadeeda heesta mataanta jacaylka waxay ahayd waxaa sameeyay abwaan faysal qisada siga ka turjumaysay qisada isaga ku dhacday bay ahayd xilliyada ay dadka tahriiba dadkeena Soomaaliyeed dhalinyarta waliba ay tahriibkaada ugu badnaayeen bay ahayd gabadh uu jeclaa wada sheekaysanayeen ayaa tahriibtay marka gabadhii muddo 3 bilood ah waxa nolol ah iyo dhimasho midna lagama haynin marka heeska saasoo ku sameeyay isagana ka turjumaysay heesku inta qisada ugu daran adiga ku taabataa waa intii mataanti jacaylkay maxamuda tadabaday ma nooshahay ma dhimashaa xageeda maanta joogtaa xageeda maanta joogtaa intaasaa itaabata oo ka sheekaynaysa inay nooshahay inay dhimataan la ogeyn marka meesha ku sugan tahay waa baafin baafin bay ahayd ugu dambeyntii ma isheleen ugu dambeyntii way isheleen haa muddo waxay isheleen sanad kadib oo isxalfadeen may weli way kala maqan yihiin weli asaguna dalka u joogaa iyaduna waa maqan tahay laakiin jacaylkoodu wuu socdaa kolley markii ugu dambeysay wuu socday waa tahay sanadiina dhaaftay 2019 iyo 2020 maxaad qabsatay waxaad la taaban karo oo naftaada ku soo kordhisay ama aad soo kordhisatay oo dira karto Suudaan waxa sanadka ama labada sano qabsatay waa maxay 2019 iyo 18 meel labada sano ayaad wax qabsatay wixii aan qabsaday horta waxyaabo badan oo qabsaday way jiraan wax bareefad ah iyo waxyaabo kale way jiraan waxyaabo badan oo naftayda si khaas ah iyo familkayga baan ugu qabtay way jiraan aniga bareefadii ah waxyaabo badan oo kalena way jiraan inaan soo bartay oo ku faanayo dad qiimo badan oo shaqooyin badan ku soo kala bixiyay wadamada qaaradda Yurub iyo Asia marka 20ga isaga taariikhdaynu ka reebina markuu dhamaado xisaabin marka inta 20ga bilihiisaasi 20ka aan raahday bilihiisaasi waxba lama qaban waxyaabo badan oo la qabtay way jiraan waat fanka marka soo galeys imisa jir baad ahayd fanka waxaan soo galay 22 markan hadda da'daada Suudaanahan waa imisa da'deedu waxa weeyaan 28 adigu ka Suudaana ma tahay fanaan dhaba inaan ahay fanaan dhaba iyo in kale anigu ma sheegi karo laakiin ummadayda sheegi karaysa ma isleedahay bulshada waxaad ku leedahay samcad anigu haabaan aaminsanahay laakiin dadka qaar laga yaabaa inay maya aaminsan yihiin
shaqada maadaama tiri bulshada aad u haysaa shaqada bulshada aad u haysay iminka aad u qabato waa fanka waxa sidii wax wanaagsan miya anigu waxaan aaminsanahay inuu wax wanaagsan yahay waayo fanaanku wax walba ka hadlaa ummadda wuu heesaa nabaddu ka hadlaa qabiilku ka hadlaa jacaylku ka hadlaa marka waxaan aaminsanahay inaan meel fiican ugu jiro bulshadayda heesaha lagu dhiibo maxaad ku xulataa ma ereyada ma laxanka labadaas ugu marka ugu horeysa heesta ereyada la sameeyay laxanka la saaray maxaad ku xulataa marka ma jiraan heeso intii lagu keenay adido tirima qaadayo way jiraan heeso intii la dhiibay la keenay aan idin ma qaadi karayo way qofka bani'aadamka waxa wanaagsan runta wax ka muhiimsan ma jiro ereyada haddaysan ku qancinin inaad qofka ima qancinin tiraahdaa muhiimsan marka anigu ereyadan xushaa marka hore saasaan ku qaadaa heestii samiiray dadku qofku jecel qisada heestaas qisada heeska waxaa sameeyey abwaangalad jacayl oo labada heesba sameeyey laba samiire weeyaan samiire qaladkaaga waxaa kasii horeysay heeska samiire ducaysan asagaa sameeyey qisaduna labada asagay ku saabsan tahay marka isaga gaar u tahay qisadu marka bulshada looma soo bandhigayo taa isagan baa awooda mid ka mid ah taageerayaashaada ayaa waxa uu ku weydiiyey suldaan inta badan heesaha qada waa magac hablood ayay u baday nin xaaslaana waa tahay oo ma oran karno jacayl baa kaaga jira ama gabadhu jecel uu heesaya maxaad markaa heesahan gabdhaha ee badan aad ku doorataa heesaha gabdhaha horta ma fara badno adaa mooday fiima waa daawadayaashaada laakiin aniga ma waa daawadaha ma taageerayaashaada okay heesahayga uma badno dumar laakiin dumar qaar way ku jiraan heesaha aan qaadayna waa hees aan shakhsi u qaaday weeyaan kuwa habluhu ku jiraan inta kale waa heesa cadow bilaa magac ahaa isla daawadayaashaada ama taageerayaashaada adiga ku taageera weliba qofkaasi inuu si gaara kuugu xiran yahay wuxuu yiri mar kasta uu suldaan hees soo qaadayo waxa uu xidhaa midabka madow mar kasta uu qaadayo dhar madow buu xidhaa walow caawadan oo aad hor fadhidana aad xiran tahay marka su'aashaasi waxaan jeclaan lahaa inaad ka jaahil saarto waran qof walba wuxuu leeyahay isagu wax u gaar ah ama wax uu ku qanacsan yahay anigu dharka madow waan jeclahay laga yaabaa gurigayga inay yaalaan surwaal fara badan oo madow sarwaalo madow garamo madow waa badan yihiin marka dharkan madow waxa weeyaan aniga dookhayga ugu dambeyntii maxaad is leedahay ugu dambeynta noloshaada fanka haddaad ku sii jirto hadafka kuu qorshaysanee kale ma inaad fanka sidan ugu sii jirto ood hawlahaagana qabsataa mise waa inaad fanka ka hadho ood hawlahaaga qabsato mustaqbalka aad leedahay horta waa maxay horta fanka anigu ku jiro imka hawlahayga waan qabsadaa hawlo bareefad ay heeyo hawlo kaleba waan qabsadaa laakiin hadduu ilaah raalli ka noqdo fanka markii aan ka fadhiisto hawlahaygana baan sii ballaadhin doonaa taasaa ii qorshaysan insha allah ugu dambeyn waa aya cidaad abaal u haysaa waxaan u hayaa marka koowaad labadeeda waalid marka labaad waxaan u hayaa familkayga oo dhammaystiran marka saddexaad ummaddeeda soomaaliyeed taageerayaashayda aan u ahay fanaanka yaan u hayaa abaal haddii lagu casuumi lahaa waa su-aashiina ugu dambaysa maxaa in lagugu casuumaad jeclaan lahay haddii meel lagu casariye geyn lahaa ama biriig casariye lagu geyn lahaa macnaa cawaaf lagu geyn lahaa maxaa in lagu sameeyaad jeclaan lahay qureex hadday noqon lahayd laakiin maxaad jeclaan lahay qureex hadday noqon lahayd oodkac iyo laxoox muqmad iyo laxoox ya hadday noqoto qado hilib iyo bariis maa laga maarmaa waata xagga cashada cashadu kolba wixii markaa yimaada sharaabada si isku tii sharaabada waan isku fiicannaa keed jeceshahay marka waxaan jecelahay burtukaanka liinta bunka iyo kaafeega sidoo kale siiba weliba kasiiniga jabanaan midabada waxaad jeceshahay madowga blaagaan jeclahaa lambar maxaa lambar laba maxaa ku ah lambar laba waxaa ii cadaanka cadaan iyo madow waa laba midabo walaala dhararka cabirkaaga ka suldaan haa nin dheer baa tahay waa imisa mitir iyo 92 mid ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed
ba wuxuu yiri marka heestan oo suldaan leeyahay aga sidii caadiga aga loo oranayo uma oran walow adiguna aad garanayso isaguna uu abwaan yahay ma agada marka si jacayl ku jiro buu yiri ma si kala loo dhahdaa agada mise sidii saxdibeed kulli taa anigu aga si loo dhihi jiro maanu iri imanka waa anigan aga kule marka si loo dhihi jiro maanu iri asaga laga yaabaa inuu si kala u dhahdo oo dadku iska mid ma aha aga aan anigu iri inaad adigu si kala u dhahda laga yaabaa imisa nooc laakiin agadu kala baxda imisa dhawaaq bay leedahay halka dhawaaqun bay leedahay anigu halka dhawaaqun baad ku de aga dhawaaqyo kale oo ma sameyn karayo badeew aga waa aga un hagee dhawaaq kale looga sameyn iyo salaamisa salaamaya ummadda Soomaaliyeed meel bay joogto familkayga hooyaday iyo aabahay ugu horeeyaan familkayga oo dhameystiran xaaskayga iyo curadkayga seerareere wada salaamaya ummadda Soomaaliyeed taageerayaashayda walaalkay saaxiibkay Idris Cabdullaahi Dabcasar oo ila socda أمين سمدان محمد الديك أمين لوف أصحاب تهدو قيمها بدن خضر وقل مصطفى سليبان أحمد ولي فريلا معالنكا دماغ والسلام يا أصحاب تهدو خاص كورن هوات أنا قلنا دقيقة كاجا مهد علم ارتقاد في قروح ذا بدن يو البحث هذا نوقع بشيع السماد قروح ذا بدن وان كاجا مهد علم ارتقاد كاجا وات هاي داود يلا انت سوى حين نقول برنامج كني كن سؤال ودي السؤال هو كان كسوقنا وأعمال أرتست طبعا ونقول مهد علنه مناسمشان قروحda badan leh ay nagu soo martay qaaday kamaradahaasi quruxda badan ee hadba muuqaal iskiin tusayay waa injineer Maxamed Mawlid Gahayriyare ee gaabane qurxinta barnaamijku waa injineer Ridwaan Xuseen Yuusuf intaynu barnaamijkan waxa ku kulmi doona waxa idin ku dhaafayaa sidaa iyo kulanti dabo xiiso leh